Burundi waa mid ka mid ah 16 dal ee Afrika ee xiran ama badda aan lahayn, wuxuuna dhacaa gobolka harooyinka waaweyn ee bariga Afrika. Waa dal muddo la daalaa-dhacayay dagaallo sokeeye, wuxuuna alaaba kaalmaha hore ka galaa liiska dalalka ugu saboolsan caalamka. Muddo 2 bil ah dal Afrikaan ah laguma marti qaadin barnaamijkan, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xaqiiqooyinka xulka ah ee ku saabsan dalka Burundi. waa dal xadla leh dalalka kale ah Tanzania, Rwanda iyo Democratic Republic of the Congo. Sidoo kalena waxaa lagu tiriyaa dalalka dhaca bariga bartamaha Afrika. Bad ahaan waa dal yar, wuxuuna ku fadhiyaa bad ka badan 27,000 kiiloomitir isku wareega, wuxuuna noqday dalka 142 ee ugu dhulka weyn. Dhulka yar ee dalkan iyo dadka ku nool, ama marka la eego cufnaanta bulsho ee dalalka Afrika, wuxuu dalka Burundi noqonayaa dalka saddexaad, waxaana ka horeeyaan oo kaliya Rwanda iyo jasiiradda badweynta Hindiya dhacda ee Mauritius. Dadka Burundeeska ah tiradoodu waxay gaaraysaa ilaa 11 milyan, waxayna ku hadlaan Kirindu iyo French, waxaana loo qeybiyaa ilaa 3 qowmiyadood oo kala ah Tutsi, Hutu iyo Tuwa. dadka dalkan boqolkiiba 85 waa Hutu, waxaana ku soo xigaan dadka Tutsiga oo dadka dalkan ka ah boqolkiiba 14, halka dadka la yiraahdo Tuwa ay yihiin boqolkiiba 1, waxaana la sheegaa inay yihiin dadka asalka ah ama dadkii ugu horeeyay ee degay dhulkan. Balse dhinac walba waxaa ku hardamaan Hutuga iyo Tutsiga, waxaana diiwaan gashan mid shabahda colaadii ka curatay dalka dariskiisa ah ee Rwanda. Haddaba si guud aan u milicsano hardanka xukun ee dalkan, saddexda qowmiyadood waxay Burundi ku noolaayeen wax ka badan 500 sano, inkastoo Tuwa sii qadiimsan tahay 500 sano. 200 sano oo ka midana waxay Burundi ahayd boqortooyo madax bannaan. Bilowgii qarnigii 20aad waxay Burundi ka mid noqotay gumaysigii Jarmarka ee bariga Afrika, balse markii Jarmarka lagu jabiyay dagaalkii koowaad ee adduunka, waxaa dhulkan qabsaday gumaystihii Biljamka, wuxuuna gumaystihii Biljamka si wadajir ah uga talinayay Rwanda iyo Burundi, waxaana loo yaqaanay Rwanda-Urundi. balse Burundi iyo Rwanda 1 July 1962 ayay noqdeen laba dal oo kala madax bannaan isla markaana xorriyadoodu ka qaatay Biljamka, waxayna Rwanda iyo Burundi u dabaaldegaan xorriyadooda 1 July. kadib markii ay Burundi xornimadeeda heshay, sidaasi kuma xasilin ee waxay fooda gelisay qalalaaso siyaasadeed, waxaana markaasi ka jirtay Burundi boqortooyo boqorkeedu uu ka soo jeedo dadka Tutsiga ee lagaga tirada badan yahay dalka. balse si kastoo looga tiro badan yahay, waxay ahaayeen Tutsigu kuwa majaraha u haya siyaasadda. kadib markii 1966 dhidabada loo taagayna jamhuuriyadda Burundi lagana gudbay nidaamka boqortooyo, waxaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Burundi Michael Mikombero oo ahaa askari iyo siyaasi Tutsi ah, wuxuuna hayay xilka ilaa 1976. labadii madaxweyne ee ka dambeysayna waxay sidoo kale ka soo jeedeen dadka Tutsiga, balse Ndadaye ayaa la doortay 1993, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee doorasho ku yimaada, sidoo kalena ka soo jeeda dadka Hutuga ee boqolkiiba 85 ka ah dadka dalkan. haddaba miyuu xilka sii hayay? isla sanadkii la doortay ayaa la qaarijiyay, waxaana dhagar u maleegeen saraakiil ka tirsan ciidanka. sidoo kale isla sanadkii xigay waxaa la qaarijiyay madaxweynayaashii Rwanda iyo Burundi oo Hutu ahaa. magaalada Kigali ayaana lagu soo riday diyaarad ay saarnaayeen. kadibna waxaa Burundi iyo Rwandaba ka bilowday mid ka mid ah dagaaladii sokeeye kuwoodii ugu darnaa ee ka dhacay wadamada ku yaala gobolka harooyinka waaweyn ee bariga Afrika. balse wixii ka dambeeyay 2003 oo heshiis nabadeed lagu saxiixday magaalada Arusha ee dalka Tanzania, Burundi waxay cagta saartay dhabadii xasiloonida, waxaana 2005 la qabtay doorasho dadban oo uu ku soo baxay Nkurunziza oo ilaa maanta ah madaxweynaha Burundi, wuxuuna 2 jeer ku soo laabtay doorashooyin muran dhaliyay oo la qabtay sanadihii 2010 iyo 2015. balse midda xusida mudan waxay tahay inuu afgambi dhicisoobay la kulmay asigoo 2015 ku sugan Tanzania, wuxuuna markaasi sheegay ama ku tilmaamay afgambiga kaftan siyaasadeed. sanadkaasi waxaa xuduudaha Burundi ka baxeen dad ku dhow 500,000 oo ka baqayeen in mar kale la israamsado. midabada calanka dalkan waa kuwa u taagan ujeedooyin kala duwan, sida caadiga ahna midabka cad wuxuu u taagan yahay nabadda, halka midka cagaaranna uu u taagan yahay barwaaqada, wuxuuna midabka gaduudan asiguna u taagan yahay halganka.
saddexda xidig ee dhexda kaga taalana waxay matalaysaa saddexda qowmiyadood ee kala ah Tutsi, Hutu iyo Tuwa. shicaarka ama halku-dhigga qarankana waa Ubuntu, Ibukorwa iyo Itrember, waxaana loola jeedaa midnimo, shaqo iyo horumar. magaalada ugu muhiimsan uguna weyn dalkan waa magaalada Bujumbura ee saaran harada caanka ah ee Tanganyika, isla markaana ka mid ah 5 harood ee biyaha freeshka laga helo ee ugu qadiimsan caalamka. sanadkii tagay ayaa Bujumbura laga bedelay caasimadda dalka, waxaana laga dhigay magaalada Kitega oo dhacda bartamaha dalka, waxayna ahayd caasimaddii boqortooyadii Burundi ee uu calankeedu dhacay 1966. waxaa jira yaxaas la yiraahdo Gustav oo ah lab isla markaana da'diisu tahay 65 sano. wuxuu ka taliyaa webiga Ruzizi, waa mid si weyn u ugaarsada dadka, waxaana la sheegaa inuu cunay dad ku dhow 300 oo qof. dadka Burundeeska ah waxay aad u jecel yihiin lo'da, waxaana looga arkaa dalkan qofkii haysta neef lo'aad inuu yahay taajir aan waxba ka maqnayn. waa dal uu musuqmaasuq badan ka jiro, isla markaana lagu tiriyo dalalka ugu saboolsan caalamka, wuxuuna leeyahay dhul ku wanaagsan beerashada. wax soo saarka beeraha ayaana ah waxa ugu badan ee dhaqaalaha dalkan uu ku tiirsan yahay. waxa ugu badan ee uu dibadda u dhoofiyana waxaa ka mid ah bunka, caleenta shaaha, suufka iyo maqaarka. 1.2% oo kaliya oo dadka dalkan ah ayaana helaan adeega internetka, waxayna 80% oo dadka dalkan ah ku nool yihiin miyiga, oo dadka dalkan intooda badan waa reemi.